corona muxuu ku baday waa su'aasha iba furku ah barnaamij wacyigelin ah oo habeen kasta ka soo gala channelka Lucky Wise Podcast. barnaamijkan ayaa ah bridge-ka ama buundada isku xidhaysa dadka masaafo ahaan ay duruufaha caafimaad kala fogeeyeen annagoo ka duulaynaa halku dhaga kala fogaanshaha jidhku kama dhigna kala go'a bulshada. haddaba si aad u macmiilato barnaamijkan macluumaadka badan xambaarsan fadlan meesha guduudan guji kambaleelka ama koortana ku darso haddii aad nasiib u yeelan weyday in lagugu marti qaado barnaamijkan fadlan corona wuxuu ku baday qaybta faallooyinka noogu reeb iyo wixii kala ee talo iyo tusaalooyin ah. wacan daawadayaal meel walba oo aad naga daawanaysaanba ku soo dhawaada barnaamijkii aan ugu magac darnay corona muxuu ku baday. barnaamijkan oo aad ka daawataan channelka Lucky Wise 7 fiidnimo ee waqtiga UK. barnaamijkan ayaanu had iyo jeerba diiradda ku saarnaa cudurkan dilaaga ah saameynta uu ku yeeshay bulshada dhexdeeda iyadoo aanu qadka telefoonka kula xiriirno hadba qofku waqtigu noo saamaxo. balse caawo waxaan isku dayi doonaa in aanu la xiriirno wariye caan ah oo rugcadaa ah jilaa heer qaran ah abwaanad ah waa Aamino Muuse Wehliye ee aanu wada daawano. hello السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم السلام. سيدة لكي الحمد لله. آمنة موسى وهلية أباي معان سيداتها ما في عنتها رافي عنا بريان قبابة مقلنة مالين ورأيو كاتم بيسو نسيت كل كاغا أركي وقبنك رواية تليفون كبريهاس تليفون كادو مقبنين مركسات أباي ورعيدي كورا الحمد لله. dumaashiga caruurta kulli waa la fiican yahay. barnaamij kadis ah baan caawa aan rabaa in aad igala qayb qaadato oo aan ugu magac daray corona muxuu ku baday. corona muxuu ku baday taas hadaan bilowna kama dhamaynayna cawada iyo habeen dambe waa soo koobeenaa barnaamijka live ba qadka ugu jirta si lama filaan ah baan ku soo wacay waa ka raali gelinaya laakiin waa kalsooni baan qabaayo waxa tahay wariye waxa tahay aktarad waxa tahay abwaanadayda aniga marka waxa si u joojin maysi rugcadaa wariye rugcadaa baa tahay marka kadis hadii aan kugu soo galay hadii gaadma aan kugu soo galaba ka rayn maayo marka barnaamijka ku soo dhawo marka ugu horeyso. abaay macaan su'aasha ugu horeyso waxaan rabaa in aan wax ka weydiiyo corona muxuu ku baday. barnaamijka halku dhigiisana waxa la yiraahdaa corona muxuu ku baday. haye marka su'aasha adigay ku taala corona muxuu ku baday Aamino Muuse Wehliye. horta waa su'aal aad u qaraweyn kowde hadii waa laga jawaabaa la yiraahdaa laakiin haddaan soo yara gaabiyo haye corona horta wax badan oo badan haye wuxuu baday takalaani waa igu dhacay mugti aniga dadka waa qaarna waa qaar corona dartiis guri ku jira oo wixii la yiri hal kala fogaadadii iyo hal la iskarantiiladii ugu jira qaarna waaba ku dhacay mugti anigu ku dhacan ku jira waxa horta baday anoo weligay baabuur ma dardarin aan war ku siiyo lakiyay haye laakiin xanuunka uu korkayga ku qabtay ayaa waxaan hadii hal makaala lu dhaw ilaa waxa iguma dhicin waqtiga baabuur ma dartar shil ma gelin laakiin hadii la idaho hal makaalo waxaan ku makaalayaa sidii in korkayga baabuur dardaro kale haye dadku waxa laga yaabaa inay ka cawdaan gurigan ku jiro iyo ganaa ku jiro iyo anu taa xasan kama cabanayo waayo markayga horeba socodkayga ma badnay haye inaan dan u baxaya maahe socodkayga ma badnay waa gartay hase yeeshee lakiyay
sanadkan waxaan weligay aragan arkay haye waxa waaye wax hergeb aad u qabto hergebna aan ahayn haye wax kasta waxaa iiga sii daranba cabsida qalbiga kaa gelaysa inkastoo aniga aan farsamooyinkaygii iyo wixii aan bartay iyo aan isticmaalayay oo aan aad isu xasiliyey runtii qof islaamana aad tahay markaa qof islaama tahay qadarta ilaahay waa iska aaminsan tahay oo mar walba saacad walbaa geerida diyaar u tahay saxiix laakiin aniga tan iigu daran waxay ahayd sida aan noqday symptomiska macnaha calaamadaha sida aan noqday anoo calaamadihii berigii hore dhan oo cudurku cusbaa qoranka xafidaya mogtahay kanuu leeyahay qandhow leeyahay xabakee duudkaa ka kululaane kanaa noqone qufac qalalanow leeyahay dhuuntaa ku xanuune sidana aan horta dhuunima xanuune waaya cuncunta laakiin cuncunkana waa leeyahay qaarna dadku dhuunta waa xanuuna dhuunta waaya cuncuntay qandha badana ay qabato una weligay aanad arag wallaahi hadda ka hor aanlakii anigoo uur leh waxaa iskula kay dhacay typhoid cudurka la dhaho oo soomaalida typhoid u taqaano iyo malaria iskula kay dhacda oo haddana gurigayga aan joogin oo Kenya joogo uur 6 biloodana qandho horta isoo marta xilligan ka hor taasaa iigu dareen taas xataa waa kasii qandho badan yaa karoon haye ta iigu daran waxa waaye adduunkii oo dhan oo inta soo ururay adigana aad telefishinka lee aad saas u dayayso oo dhimasho sugayso asaa waxaa lagu leeyahay halahaasoo kunaa dhimad hala markaasa qalbiga waxaa kaa soo galaa talow adiguna kuwa berri la tiri doona amaad ku dhigtaa 800 dhimad 9 dhimad 600 intaasaa dhimatay qalqalka macnaha inkastoo quraan dhagayso dhagaha quraan gasho markii dambe dhagayaaba shub jiriba qandhadyaa badatay markaasaani waxbaba maqlayninba waxa kuu sii dheer ilmihii gurigay la joogay ewel haddaa caruurtaada xanuun caadiya kugu soo bodo waa kuu gargaari kareen kuwan si ay kuugu gargaaraan mala anigii waa lixa jeclaysanayaa waxaa isleeyahay haddaad dhimayso walba kaligaa adiga le aad dhimatid haddana qolaa ku jiraa anigii iskarantiila qolkii cunuga markuu irida soo maraayo oo ama shaah kulul ama wax isooga haddana gacantaa uga haataa hadal badan xataa korka ma hadla uma qaylo karo gacantaa u haatiha maaragta gacantaa u haataa joog camal maaragta joog camal ma weligeeya inta cunto laysoo kariyaa walaalay qolaan ku jiro albaabkiisa laii dhiga waxaan soo jaalmaad ku jirtaan isleedaha filimadii markaan fiirsan jiray waxaad arkeen moogtahay maxaabiista saxan xumoo tareeha inta 4 xaba loo soo saaro oo cuntaa inta meel yaro oo baqbaqal saas looga fura laga taagaa mogta haye baqbaqka taagiyoo kaleta albaabka lagu dhigaa qadaaba raban in lagu dhigo because ilmiyaad la jeclayso asoo ilmaha qaadsan cudurka sax midda kale ta aan ka yaabay waxaa waaye sida directionka lagu siinaayo iyo sida adiga u rabto dadkii waa kala laba mogta qof wixii talooyinkii lasii rabaa inuu raaco oo waa dhaga nugul yahay qofna ma rabiyo inuu raaco marka kuwa aan rabin horta xagga iga dhig anigu malaha waxaan ku jiray haddii la tartami lahaa lakiyay oo maanta inta la tartami lahaa abaalmarin laysku siin lahaa abaalmarinta koowaadaan qaadan lahaa malaha dadka dhagaha nugul ee siday tahay wax u raacay markaas anoo qallalan oo qandhoon oo dhinac u socda markaa mas-uuliga aado ama guriga meel kamida wax uga baahda ogeysiis sii baxaa hortayda ha laga leexdee iyo 2 mitiraan rabaa in la isu jirsada moogtaa midba ilmihii mid dhexyaan taagan amaad ku tagta alla waxbaa soo aragtay wacdalla wax waa soo aragtay amina muuse suuliga markaan galo tubada aan biyaha ka furo oon gacanta ku taabto dibaa u tirtiraa
إذا وايد سانغوتا وايد سوحانغوتا مريء قينا ماركت أو disinfecting على هاي وحالها هانغوتا مركزان كترترا فلاش مسخش واترترا مسخش السلك هذا ماشي فريستو واترترا أبا يا بارا كامل kugu dhacay runta way والله بارنا يا أبا كامل حق kugu dhacay marka مسخش aada gafuurkan duubana waxa isla neefteena iyo bood halkala ilmihimid kamida sanka ee dalqada ka gasho markaas Allah ya ilaahay walaalay horta warwarka si kasta isu dej quraanka yaa dhageysanaaga ma saqandadiyaaba iga badata xabba maqliba aamino ay lagu ma soo koobi kara wacda la waa dareemi kara wixii oo maxaan ku yiraahdo qofkii corona uu ku dhacay baa wax walba og horta beenta ma aha haddana kumaba soo koobi karnaba wixii de markaasi aad la kulantay ilaahayna alxamdulillah horta ilaahay wuu ka badbaadiyay ilaahay haddana caafimaadka ha ku si dhameystiro oo caafimaad taam ah ayaan ilaahay kaaga rajeynayaa aamina marka ugu horeyso marka xiga maxaa kula yaabadnaa aamina ee aad la kulantay inta uu socdo cudurkan dilaaga ah ee corona xanuunkayga aan ahayn miya inta uu socday cudurkan dilaaga ah xanuunkaaga maxaa adigu shakhsigaaga naftaada maxaa kula yaabadnaa oo aad la kulantay waxa ila yaabadnaa dad soo wacaya haye وقصوبها السلام عليكم آمر ما في عنتا حتى أنا كمان كان حنوسرة مركا عبار مع المطور مع الموت مركا حنوسرة أنا بحط له شوي أنا حنوسرة مقت هيه ولا لا لا أرن لا بجرب ولا كيس ندا با يا بيجا يقولك تيجي يا كبتنا وحي هاي الصومالي أو community office كشقية حتى community office معناه هذا وحوان حفيز بالشيء وكشقيا أور بالشيء وكشقيا معناه هذا وحوان وقفك عساق اللي قرب إنه دكتور وعي قريب هيه أنا قلت بحول لي أعملها بس عنتها ساعتها ولا أنا راح نسرها مرة بين القرشين وقتها مرة تدخلها قولك درس كيس سوى كل معها وريا إلهي يقال يا تادي وصلت على الكوميونتي وحاجة أوفيس كشقية ما أنا جا حنوسة كلها قرار فيروس ما هي هذه مالنا ولا عادي ما هي جاب عرض كبيرة وريها هاي مالنا واحد يلي أبارة قبطايا والله هذا نكا جدا بحثها أنا لو أقول سنة وملاين معي إنه community leader يهي وما أقول سنة إنه جامعة community جاية you know why أنا قلوا ولا أدرس كذا كذا كل معها حط مقهر بحاسر عاملون وهذا كبر شو كبر يهاري أنا ضياب آد كوسين لقى ترتاح وهذا عسلاتين لك أمر وحكا لكم يا عائري السويري أدراسك كان هي كبعدنا وكل ما لهاي ما أنك إيه ما هي أدراسك ملق داونا اللي يري هلا يسجل صدف ترى 2 متر أما بس 3 طلابة عادية هلا يسجل صدف أدخل عندي سو سلامي وحدي كتجري والله ويا باكو وادعنا متى كله حنون كدلقاك وكاقادا مقطع باي هذا مركه دلقاada jirtay oo hadalada qaarkaad iyo waxyaabaha qaarkood iska dhageysan kara jirtay markaad xanuunsanta farta ku gaadhay iga taga inay dambaajin baraaya ku arkiweysay hay imaanna imaanaysid waxyaabo badan oo dabcan ana halkan lagu soo koobi karin ayaa qof walbaba uu la kulmay aamina aamina muuse maxaa isku madadaalisaa maadaama hadda guriga la joogo oo shaqo aan meel la aadaynin abaayo horta aniga waligayba ismadadaalis horta ku fiicnaa warkiisiyo haye oo waxaan ahaa qof waqtiyadeeda firaaqada amaaragtay horta hadda subaxii waxaad u qabtaa inaa wasaarad u shaqo tagaayaad u qabtaa hadda gurigan ku jiraa heeday haye wasaaradda u shaqo tagaayo malaysa waxa samaysto routine samaysto kastada routine samaysan adiga iyo 4 cunug iyo wasnaciisi haye waxaa sameeyaa subax markaa horta salaada qof waxaan haysadaa salaada subax markay tukato guriga kuma noqdo marmar
jifa oo banaadana iska caajisana ma he hurdada abaa kuma noqdo haye salaada markaan tukado awal waxaa sameyn jiray waxba akhrisan jiray waa ardayda ah waxba bartaa marka waxba akhrisan jiray hadda xabad ma akhriyo duruusta waana laga kansala kulligeeda waxaa sameeyaa salaada markaan tukado oo iska duceysto oo ilaahay iska baryo oo ummadda ilaahay u duceeyo telefishinkaan daaraa online kana computerkana waa daaraa tv-ga dhinacaan ka hooyo ama computerka horteeda ka furan yahay marka waxaa raadina wixii news xalay intaan jiifo wixii dhacay haye intaas markay dhamaato waxaa isleeyahay hooyo iyo caruurtii kaleeto caruurteeda qaar la deganayna waaweynaado oo guniyo kale mid reer uu leeyahay mid reer male laakiin asagoo guus ka shaqaysta guniyo u degan yahay markayna ilmihii iyo kuwa kaloo habareer u ahay hooyo la degan inaan dad ka war doonaan rabaa doctor marka kuma dheelma kare sax كتاس وحامت حوغا قروح الصوية ربحنا أو سديد صبح لما ميلها أما لما ساقف السوق مركا لقارب وإلى قلابا مركا هو يا وعما حتى إيقا قبط وكاسا حتى إيقا قبل مركو علينا علمي يا وعا واتساب جروب هاي فاميلي واتساب جروب ayaa samaysan anagu corona virus ku xaraaba sameeyay laba whatsapp group aan qabna ma sha Allah waxa waaye ilmaha aniga aan dhalay bas iyo kuwa kala habrento aha ku jiro midna waxa ku jirna kuwa ila dhasho ila ku jira marka labada whatsappna waa soo salaama marka dad America jira iyo ku soo jawaabi maayaan doctor hurdayaan ساتي قلبي waxaa iga soo galay abaa horta lakiye ilaahay taradid horta nabadgel laakiin qalbiga waxaa iga soo galay xalay inta jiifta ama qaar dhintay haye waa soo salaama marka ساتي ma fiicantii ma nabad qabtiin idinkii ilmihiina Allah ya maqta leeso jawaabi maayo mukaas qofka muka soo kacay soo jawaaba ilmahana waxa wici kara waa waxa hooyo waa waxa hadaan waa ku celina hadhow tadamaxeetan waa iska adala welina abaayo xanuunka waa harta waa raystay laakiin weli maantay waxba igu jira mogtahay tabardarro badan iyo waxaas ahaysa marka quraacdeedii wixiigaa samaysana hadda waa fiican aan samaysan karaa marka intaas ka bacdi waxaan sameeyaa waxaa isku dayaa abaayo in aan wax qoro waxbaa qoraa maadaama gacmihii shaqay karaan haddaan fadhiyo markaan daalayo markaan istaagsana waxyaabo badan marka oon markii hore aan waqtiga islaamixii jirin ayaa waqtiga islaamaxay marka waxyaabo badan soo ma jiraan adduunyada wax qalbiga kaaga jira waxaas qabo haddana ma qaban karaysid because waqti mahaysid marka waxyaabahaas waqtiga dhaafsiyo oo dhan aan qoraa waxayna u badan yihiin wax la qoraayo u badan yahay ma garatay waa gartay wax la qoraayo badan social mediaha asagana waa meel aan isku maageeliyo oo aan rabo oo dadka commentiskooda waxooda ta iigu daran waxay ahayd laakiin oo aan aad iskugu maageeliyo ilaa hadda waa wadaa walaalay like 70,000 oo messages camal ayaa iigu jira ma email-aad tiraahdaa ma Facebook-aad tiraahdaa inbox-ka ma adigu meelaha wax iigu soo diroona ama horu kale mahaaye kuwiyaan waqti ku haya saan u akhriyanba haddana dee inta badan Aamina Muuse waxa weeye markaad xanuunsatay waxa tahay qof magac bulshada ku leh oo aad ay ku jecel yihiin qof walba uu walwalay marka aad tiro waa xanuunsanahay bay dadkii oo dhan message ilaa telefoonkii aniga la kii xataa waa ku soo wacay telefoonka ma aadan iga qaban message baan ku soo diray marka dadkii oo dhan saasi kugu soo diraya Soomaha dadka saasi u soo diraya laakiin waxa jiraba coronavirus ka hor inta waxaniba aanay bilaaban مسج أنا ولي فرن أو لبادي كل يستدي طبعاً لبادي كل طبيعي طبعاً كلا صادرة مرتا مسج دك نورمال كعاد مرول بوح شقرتان مال جاري هي جليان هو دك فلوريسك قوة بس لكن أنا بدنا هذا الشقرنا أو حرير كنا أنا بدنا مال جاري هي جليان مقتاي ما قوة سماش جارة جاي أو دك أنا حرير كيا بدنا kuwaasan meeshoodii la doontay oo ugu tagay marka kuwaasi waxaad arkaysaa ta message 2015 la soo diray iskaga jira marka message-yadii afure ta ugu qosaka badan waxa weeye message-yada fanni ahba haye ilaa dadkan dad caadi oo afgarad ani adoo kale waa afgaranayna waa ka naqaana maxay heetona hadda qofka dadka sheeka taqaan
taqaanaan waa gooni message satala isu diraysaa oo aad garan karayso macnahooda qaar waxaa jira aad isleedahay horta message-ka majuniyo ka yimid message ka yimid faraaqaan u hela iyagu yaabka badnay maalin dhaweyd waxa soo saaray Facebook horta waa message cajiib ah laakiin waa ku sheegaya tan ilaa iyo hadda message-yada aan faray iyagu yaabka badnay wuxuu yiri midda wuxuu leeyahay marka hore waa xajilneed Soomaalida moogta qofka akhlaaqdooda ayaa ka jira moogta marka hore waa xajilneed hadda waa iscaatay soo caatoon ilaa anigu la socdaa moogta faloobo in culayska iska dhimo iyo ana boodboodayo faraxsano culayska iga dhacay waragay moogta haye waa rajabeetada meeqaad qaadata wariyaa ilaahay yaqaan rajabeetadayna xakuuke ma uu jawaab marka waxa soo kala jawaab male moogta jawaab male wala iska aamusto وأنا عندي في فيسبوك صار جفت أو وصلك أنا إذا دميسي لكن أنا قرية قف كيس إيش قرية أنا قرية أو أنا سويت بسيب رفضت قرية رنتي بس كيف صار وحواي قفنا وين بقى أنا جاي لي هذا ما كان حلو سلام حياة لكن ما كان مسيف كعقل صراحة أم الله يسمع حتى كورونا فيروس كمان كان حل كان أقول بعبريها اللي بيجروا أنا أقول أنا حلو صدق أو حلو كان هلا إنه سوقرة أو ملاسة سو ما نقرينه كل هرو سوقرة لما كل إسقال تبغى باللغة يجي سوقرة كوا أبا وحقولها ولا ما صحراته عشان ترى وحنا الكرسي وطا خلاص كم يجوك سنة وقتها هداي هات هاي ما صحراته سنة ما قد صحراته كوي وابا الشقة كاملة هو سامي حكايري كرهت ميانا وغين بمركز سكول كدقاء حتى حسابتنا دونك ويقول نعبان سومالين هدات راحات نعباد وحي كلين عربية عربي من نعبان على حسابتنا نعبان والله وحويه وحيابه بدن با كula kulmaya beerta ma aha ajiiba markaas adiga corona virus ma su'aasha soo kala furday hayo barako hayaya oo xaluusan bal midaas oo kale inta furtid aqriye abaayay wallahi waa yaabaysa boqolkiiba boqol ka dhalatay oo walaalaha tiido isku afkay isku diinta isku hebelowga isku magaciisa aadtiin qaarkood horta ay ka suubsan yihiin aslaadaha moqt marka abaa ani waa ismadadaaliya maxay ahayd waxa kale oo fiirsadaa intaas oo film oo ama science fiction ama kuwi coronavirus kiyaaba usugiyo corona iyo film aaba joogaba haye oo Netflix kay laga helaa asad yaabaysa oo waxa filmka goorma la sameeyay 2012 kana ka jamaa la sameeyay 2012 oo hadda in coronavirus la soo socday dadka aan waqtigaas ogaayeen waa yaabay waqti ya marka waxna waa akhristaaba marka hadda qandada iga yaraatay waxa shaqo u helay inaan wax badan akhristo awal wax abaayo qof waxa ahaa jir wax akhriya bariyihii dambe waa noqday waa ka saxsanaga akhrinta marka waxna waa akhristaa akhris badan akhriya wax badan waa qoraa ya dadku badan sidii qorkumay oo life badan oo fara badan ma soo galo laakiin waxyaabo badan oo kale oo aniga markii hore ii suurta geli waay abaaysa basta aad baad u mahadsan tahay Aamina Muuse sida quruxda badan oo aad noogu sharaxday waxa aad isku madadaalisay Aamina ma jirtaa wax isbedel oo ku yimid noloshaada cudurkan intuu socday horta abaayay isbedel kala kuma imaan laakiin marana abaayay waxaan ilaahay ugu shukri noqay markaan maqlay in rag badan iyo dumar badan isdileen haye oo wariba naaga badan kaw laga siiyay kuwa kale ayadoo nafta ku dabayarta laga soo gaaray haye abaayo ilaahay inta iska tugaata aaminooyee ilaahay ba single mother malaha ka dhig single mother baanahay way samirtay baanahay sariga taanahay والله مقطعات إلهي الله هتلعب مقطع قاعدة إلهي الله هتلعب مقطع صرفت واحد هاي قولي قفل اسكولكم فلنتين هداد اسقبتيننا قارن كلا بحيلنا كذا إلا ده صحيح صحيح كذا إلا ده وانا رنت أرجع كحيدا اللي معي تاسو توابد طلبات ولا علي بلا آدم كسيدي السبب قال هذا وقالها هذا نها وحواي قالت كسبوا بدنيا قالت يا مركب وحي كلا هاي
midna markaad ku jirtaad fahmay inaad qalad ku jirto laakiin badanaa qaladaadkeenna markaan ku jirno ma ogaano hota coronavirus iyo guri ku isku xirista iyo weliba xanuunka iyogu darsamay waxay i xasuusisay waxyaabo badan oo noloshayda qalday oo aan haddii alla iga kiciyo allana ka rooraado noloshoo dunidiyo caadi kusoo noqotaan arkana aan rabo inaan soxo waxaa kala abaayay oo noloshayda ka bedashay anigu dadka safarka badan ma ahayn ma safri jirin waan aragtay lakii inta jeer qadi adaa isku wadan joogno laakiin laba magaalo inta jeeran kula ballamoona kugu imaan ma xasuustaanta taa صحيح صح on qalbigana ka jeclaa oo intaas abala jabixinaa baa iska raalaha saareega noqoto horta hadda kadib waxaan go'aansaday qofkaan la ballamo iyo meeshaan rabe inaan aado anoo gammuun fara laga deeyay xamaleen insha allah siiba kan iigu daran waxaa waaye walaalahay oo maraykanka degan oo north america maraykanka iyo canada degan inaan soo arko horta anoo u faydan oo raba inaan samarkaan baxo soo arko abaaye horta taasi igu dhacday ma garata waa gartay midda kale lakiyay aniga horta dadku wax qariya maba iyo runbaaba iska sheegayaaye waxaa is iri aaminoy bal wax alla iyo wixii noloshaada aad xilligii hore dib u yaro dhigan jirtay dib ha u dhiganin anaa mar walba ogaa in si degdega loo dhiman karo laakiin in annaga ramadaanka ka hor aadanaha la quunfulaayo intaa shaydaanka la quunfulay shaydaanka waa xirxiran yaha la yiraa ramadaan waa la xirxira shaydaanka unugyaaba goorba shaydaanaas unugina la wada xirxiro waxaa is iri intaa sida mar damba oo kale dunida intaad ku nooshahab oo nafta ilaahayba kugu jirto intaa sida shaydaanka mar kale layda xirxiran aaminoy inta halayda xirasugu wax alla iyo waxaad ka gaarta adduunkooda ciid qabtoo dhan ba qababa haye walaala intaa xanuunsanaa laakiin qalb waxba igu soo maaxaa walaala niyadda waxaan ka jeclaa inaan wadankayga iskuulla ka furo inaan ka furo maxay ahayd mental health centers dadka maskaxda dhimirka ka xanuunsanay lagu daweeyo صح inaan iskuulla furo oo iskuulladaas luuqadda iyo saxaafadda ka bilaabo waxaan bartay qofku wata waxaa fiican inuu qabto wuxuu yaqaanuu bartay صحيح labadaasaa aniga bartay saxaafadii iyo luuqadii oo dhinaca iyo maxay hatoona caafimaadkii dhimirka labadii aan bartay ayaan rabay inaan wadankayga xaruumo uga sameeyo oo bal wadalkayga inuu wuxuu ugu dheefo insha allah haddana riyadaada allah ku markaan xanuunsada waxyaabaha iigu daraa wallaahi wax kale ka waxaan ka fikira aamino hadda waxaa dhima rabtaa iskuuladii isbitaaladii furi ma dhima rabtaa asadan waxaa niyadayga soo dhace ilaahay qalubta daalacdaada dad islaam ahaatee diinta islaamka waxay aaminsatay allah inuu qalubta daalacdee ilaahay qalubtaada daalaca adoo furan lee lamid ah haddaa dhibata xitaa aamina muuse waxa weeye horta qof walba maalintiisa dhaafi maayo sida niyadaada ku jirtana riyadaada allah kuu rumeeyo insha allah annagoo gabagabadii haatan barnaamijka gabagabadiisii annagoo joogna aamina muuse weheliye maxaad kaga faa'iideysanaysaa ood kula talin lahayd oo ku wacyigelin lahayd bulshaweynta Soomaaliyeed ee ku daawanaysa walaalay waxaan ku wacyigelin lahaa horta dadka markaad la hadlayso lama canaanto ma fiicna canaanto ma wanaagsana صح laakiin maanta Soomaalida hadday i suurtageli lahayd oo gebigooda inta meel laygu keeno inaan la hadla ay noqon lahayd waxaan dhihi lahaa walaalayaalow bini aadan noqdo madaxda iska dhaafa صح abaayo waxaa la yiri keeni jire gacmihiisa hoose u dhaqdaa ilaana mir joogiyo wasaq badan yihiin oo ogyihiin صح abaayo macaan Soomaalida waxaan kula tarin lahaa walaalayaalow waxaan hergab ma aha aniga dad badan arko oo soo waxa hergabki taa ka naqatay war hergab ma waa coronavirus yaa ilaahay yaqaan isbitaalka ayaan beenta wada calaamadayo sheego ugu corona ku hay adiga ma hergab ka dhigaan marka inay iska daayaan qofka hatta calaamadaha hergabka isku adka ha u taxadara sida inuu coronavirus hayo oo kale ma garad صح social distancing waa ama kala fogaanshaha maadaama cudurkan qof iyo qof lagu kala qaado wax
droplet af ingiriisiga lagu yiraa oo ah fuuq jirkaaga ka baxay ama qufac faniinkiisa ku baxo ama hindhise faniinkeeda ha ku baxo ama waxaaga ha ku baxo ama diif aad intay iska siimisay gacantaadiyo diif laad meela ku tirtirto ama qof kale ku salanta ha ku baxo droplet aan lagu qaada صح maadaama sidaas ay tahay in la kala fogaado waxay samaynaysaa in dropletkaasi oon qof kale kaa gaarin ya صحيح midda kale soomaalidan mugna islaamka ah mugna aad islaamba u ekayd waxaan u sheegayaa haddaa islaam tihiin oo diinta islaamka sida ay tahay ayaad ugu dhaqmaysaan ooda ugu dhaqmaysaan ugumaba dhaqantaane isma dishiri oo isma xuquuqdaan haddaad tihiin صحيح in aad qofka kale ka ilaaliso xanuunkaaga diintay ka mid tahay صح dhibaato qofka kale walaalka ay u geysan haddii lagu yiri waxaa ka mid ah coronavirus-ka xambaarsantahay qofka kale ha qaadsiinin waa ka mid ah صح maqaayadahan yurub ku yaala anigu kuwii wadanka horta waa u turayaan maxaa yeele xaalado adagaa jira abaa macaan qofkii mid gaara gacan iskaga shaqaysta iyo mid suuqa wax ku bada haddii guriga joog la yiraa guri soo ku joogana male soo ku soo baxana male صح laakiin abaayo kuwa yurub jooga ee loo ballan qaaday ee hadda loo firi waxa loo kordhiyey child benefit-kii waxaa loo kordhiyey kuwii xataa beenshinka ahay waxaa loo kordhiyey benshin credit-kii waxaa loo kordhiyey working tax credit-kii oo ugu yaraan 20 giniga sterlinka wiigii loogu daray bisha dambe wada bilaabanaysaa dadka shaqaalaha ah in mushaarkooda la kabo dadka noocaas kala ah kuwa business kale ama maqaayad ha ahaato ama waxa ahaata kuwa self employed-ka waxaasoo dhan dowlad kabaysa qaba walaalay waxay inta u qudqudaan ay maqaayadaha hoosta uga furaan albaabka korona u xiraan oo jidka ku jeeda halka luuqana u furaan soo qalad maaha waa iimaan darri oo waa qalad oo waa halligaad waaye warsiku iyo iska weli hadday jiraan kuwa weli qurufaadka aaminsa dadka islaamka ku magaco soonan ugu dhicin waxaas dadkeena aydisa ku dhameeyey sawirahayeen aydis islaamka ku magaco soonan ugu dhicin waa cudura gaal islaam yaqaan qof walba ku dhacayay walaalayaalow haddii meelaha nabad ka jirto ama dalalka horu maray dadka jooga gurigeena ku jira haddii leeyahay gurigeena ku jira صح haddii leeyahay 2 mitir isu dhaxaysiya oo 2 mitir isu ma adiga cunugaaga 2 mitir isu dhaxaysiya صح waa oga dhibaato badan jirto guriyo yar ku jirnaa qaasatan ingiriiska guriyadu waa yar abaayo hadda anoo kale 4 qol waxa deganaa 3 qol oo jif waxa deganaa fadhi iyo musqul iyo jiko marka aan xanuunsada ani fadhiga soo guulay laakiin because hal qol oo labadeedu wiil isla seexanayeen waxaan siiyay jaaris ay labadoodu mid boqolkayga ku seexdo mid boqolkooda ku haran gabadha qolay lahayd aniga la fadhigaayay ya صح intaas waxa waa social distancing in la buuxiyo Soomaali garan marka walaalayaal oo amarka maqla haddii diin rabtaan ku marmarsotaan laba qodob baan idinku adkaynaya oo ah inaad dadka ka nabadgeliso adiga xanuunka ku haya oo ummadda ka nabadgeliso waa diini waa waajib diini adiga ku saaran waa صح inaad amarka maqasho waa waajib diini ama gaal ha ahaado muslim ha ahaado amarkii dawladuhu waxay yiraahdeen dadka maamulada idinaya ee dawladaha aad ku nooshin madaxdooda iyo wixii la soo saaro maqla iskuna badnaada waa hergab kibray waxaas ma jiraan hergab kibray coronavirus la yiraahdo ciyaarina maayo ama kow ka siiha ama waa ka kacay labadaas wuxuu dhaxay bala marka dadka intaas oo kala talna wala shahada fara badan baxsi intaas ku soo gaabina Aamina Muuse Weheliye aad iyo aad baad u mahadsantahay sida quruxda badan oo caawa barnaamijkan oo aan ugu magac daray corona muxuu ku baday si aad igala qayb qaadatay bulshadeynta ku daawanayso sidaan aniga aan raaliga kaaga noqday in ay kaaga noqdeen baanan filayaa aad iyo aad baad u mahadsantahay sida quruxda badan oo kadis intaan kuugu soo wacay oo aad su'aalaha jawaabahooda waafi ahna aad ii siisay Aamina Muuse anigu waxaad ii tahay abwaanadayda horyaalkaygii baa tahay waxaa tahay rugcada wariye ilaa in muddo ah saxaafada ku jiray waxaa tahay jilaa heer qaran ah marka waa dhan walbaba waxa weeye waad ka dhan tahay aad baad u mahadsantahay Aamina Muuse Weheliye alaamada walaalo waa mahadsantahay waa thank you very much walaashay ugu salaam dimaashigay iyo carruurtiba aad baad u mahadsantahay assalaamu calaykum wa calaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh
guntii iyo gunaanadkii barnaamijkii aanu ugu magac darnay corona muxuu ku baday caawa intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa ballanteenu waa 7 fiidnimo ee habeen dambe xilliga UK fadlan wixii fariin ah commentiga fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh. Assalamu alaykum.